أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عليه مال كستا جوجتين دالكي دبدا وإن سلامي وأنيقو جنرال مروة جنرال مقعيقة ولا عليه وحاني نقعد سنة دالكي دبدي جوجو لايك يشير مانتا وحانو ودا قصة حنون بدن وعلى الحمى بدن هويو سوماليات ويوتيوبر لا حول ولا قوة إلا بالله عظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي waxaan ugu baryaa qof kastaba oo hooyadaas taqaan inay u duceyso oo ugu duceyso ahla janno. Hooyadaas waxay ahayd hooyo fiican, hooyo diinta maasha Allah caruurteeda, hooyo qurbo ciyaalkeeda Soomaali luqadda Soomaaliga maasha Allah. Faa'iiso Allah ku xaafido hooyo, Ilaahayna ha ku siiyo quwad iyo taash a'la taash gabar Soomaaliyeed Allah ka dhigo. hooyadaas waxay hooyo aad boqorad u ahayd. anigu aad dadka aan jeclahay oo na kibrin oo youtuberada oo Ilaahay ku xiran oo Ilaahay tuugo oo Ilaahay yaqaano hooyadaas ay ahayd. waxaan u jeclahay youtuberada aad u jeclo aad u taabacaa hooyadaas hooyo Fartuum iyo Maxamed Buskud wiil la dhaayo. hooyadaasna Canada joogtaa, Maxamed Buskudna Sweden oo jooga. hooyadaas waxaan ku jeclahay boqolkiiba boqol. waa hooyo erxam badan, waa hooyo naxariis badan, waa hooyo qurux badan, waa hooyo edeb iyo akhlaaq iyo haybad Allah u siiyay. waa hooyo gabar yar oo shabaab ahayd maasha Allah, awlaada yaraan ku dhashay si qurux badan u soo libinayso, si muxtaram xataa ula daadihinaysa ciyaalkeeda barnaamijyada iyo luuqadeeda. Ilaahay waxaan ugu baryaa gabadhaas muslimada oo walaasheen a'la janna firdawsa allaha galsho, gurigay ka baxdana guri khayr iyo xasanaad iyo raaraantay ku korisay kasii fiicnaan badan Allah ugu dhigo. soojkeedana waxaan ugu rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad. way xanuun badan tahay guri hooyo buuxdo. hooyada waa taashka guriga, waa diamondka guriga, waa dahabka guriga. والله 2009 inay soo gashaa u maleynaa hal ayaan barnaamijyadeeda u daadihi jiray. marmar xataa waa iga qoslaysi jirtay. Soomaaliya daa'im ka hadli jirtay. Soomaaliya dadka jooga ku dhibaataysan way ka calool xumaa jirtay. ciidii gabadheeda maray isla soo wadeen ay isla hadlaayeen. aan xasuustaa ay ka hadlaayaan Soomaalida afrikaanka kale Soomaalida caayaan gabadheeda maasha Allah siday Soomaaliga ugu hadlayso sidii ficlan hooyada way ku kalisa time iyo waqti aabaa iyo hooyada maasha Allah tabaarakallah. adigoo joogtid qurbo oo joogtid Canada ayaa waxaad ku hadlaysaa luuqadaada Soomaalida. waxaan kaloo haddana gabdhaheeda ku jeclaa xijaabkooda asturnaanada maasha Allah. dadaa ku dhahay wadankaana wax leh, wadanka waxba ma halay inside-ka guriga gudihiisa. anigu dadka ma sii faafaalinayay gabadhaas walaasheena oo baxday. qof kasto intii oo maskaxdeeda haday ku soo dhacdo faataxa oo aqriso, dambi dhaaf, cibaado suuban, janno firdawso a'la janno firdawso. tii gabadhaas meesha soo bax. corona wuu dhib badan yahay, dilaay waa yahay. aniga in la hadlaa waa igu dhacay wallaahi been ma sheegaa. markuu igu dhacay aad iyo aad ayaan ugu dhibaatooday. awalan dadka healthiga aad u healthiyeysan ma ihi. dadka healthiga dadka waxaan ahay anemia markasta qabo. maasha Allah aniga waxaa ii keenay cunug yar oo aniga aan dhalay oo nurseryga ka keenay iskoolka yar oo ilmaha meesha xanaalada lagu xanaaleeyo oo iiga keenay. wuu igu dhacay corona, wuuna xanuun badan yahay. dheedheelna ma oo corona. ilmaha easy basiida u yahay, wax sahlan waa ciyaalka. ama aniga iyo wiilka yarna isna sidaas camal waaye, cunto ma cuno. asaga iyo aniga ayaa ku dhibaatoona. asaga markii 13 March oo ku dhacay wuxuu ka baxay 28 March. markuu asaga saas u dhaaf aniga ayaa la qabtay. wuu qandho badan yahay, wuu xanuun badan yahay, waa sahal ma aho. qandho wataa, xanuun badan oo wataa.
markii ugu dambeysay oo 3 biri oo ugu dambeysay ahayd 4 biri ugu horeysa wuxuu ka haynaa dhuunta iyo qandho iyo madax xanuun badan urka ayaa ka tagaayo cuntada dhan way ka tagaysaa urka way ka tagaysaa cuntada testa ma kula laho laakiin aniga markii dambe wax iga qabtay wadnaha iyo xabadka waa neefso waay ambulasta markii loo wacay ambulasta ortargaalada way ku weydiinayaan wax ma rabtaa saa ma rabtaa kan ma rabtaa aniga way iwadi rabaa laakiin waxaan dhahay cunugayga ayaa jiran cunugaygana aniga loo i rabaa asagana kama tegi kari familna ma haysti adoogana waa shaqeeyaa haddana asagaba sokoroo qaba ma bixi kari ayaan dhahay anigoo neeftii dhibis markii neefta kugu dhagto lugahana baralaatay noqonayaan ma neefsan karti afka le ka qaylinaysa xanuunuu leeyahay sahal ma oh waxaa laakiin aniga markastaba calooshayda si kale ay u walaacdaa oona aanan fahmi karin waay qof kasto markay isbitaalka tagto ay corona ugu tagto especially dadka meelaha kale ka yimaada foreska dadka gaalada dhimanayso waa dad waaweyn da-dooda markii gaalka iyo muslimka la isku fiiriyo muslimka qamre ma cabo xashish ma cabo qaansiir ma cuno ilaahay ay caabudaan sujuudda naftirkeeda oo la sujuudsanayo cudurro badan ee dadka ka daafacdaa waa weyse qabnaa waay markaan isbitaalka aan tagno qoftii oo lugaheeda ku tagto loo dhahaa way dhimatay because qofkaadi ma ogid wax lagu sameynaa wallahi inaan been kuu sheegin aad iyo aad u calool xumaana aad iyo aad u ooynaa aad iyo aad waxaan ugu ooynaa qoftii oo fiyow ayaa tagayso meeshii oo caafimaad qabto aad tagayso meeshii markay tagto qoftii waxaa la dhahaa way dhimatay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun daas waa wax calool xumaa daas waa wax la fahmi kari anigu ma fahmi kari beenna ma sheegaayi wax aan sameeyana ma aqaani laakiin aad hooyadaas ii taabato walaa xalay ma ka seexan habeen hore kama seexan sidii laygugu soo sheegay ani dhan waa shoogay qaracana ay qabtay waa naxay si kala noqday waa isbedelay wallaahi qalbigayga ma kula tahay wadankan aan joogno very racist oo cunsurnimo wallaahi weliba meel tuulaan ka joogaya aad ayay ku cunsuriyayaan kuwii oo cunsuriyad kugu yihiin oo cunsuri kugu ahaayeen haddaad ugu tagtid meelay ayaga leeyihiin ilaahay ayaa kaa badbaadinaya wallaahi inaan been ku sheeg haddaad dukaan ugu gashid oo adigoo anba saf ku jirta safkaada la soo aado oo dhahda excuse me sidii baahalki kan meesha kadaa kan manajarka kan sadagiini wadankan aan joogno wadan kastaba wadan gaalo anagu dhib ayaan ku qabnaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ugu baryaa inuu wadankeena dhibaatadana haysato iyo rafaadkana haysto iyo saxariirkana haysto ilaahay inuu naga qabto ilaahayo waxaan kaa baryaa ummaddeena waa iska dhib qabtaa rabbiyo wallaahi maanta waxaan ku duceynaa qalbi sax markaa walaalkaa maqan aa u duceysay dacwadaada waa la ajiibaa aadaan gaalada wadamadooda ugu dhib qadnaa iyadoo la dhahay wadanka carab ayaa nagula cunsuraya maya kana lagugu cunsuraya kan qalini buugaa lagaaga baqaa carabtu waxay kaaga baqayaan ma kula tahay dadkii adigoo meel joogta dukaan amba wax amba saf ku jirta amba shaqa aa rabtid kusoo burna isbitaalta ugu tagtid ma kuu salaaxayaan ilaahay waxaan ka baryaa wadankayga waa iska dhib qabnaa dad muslinaan nahne dad maasha allah hooyooyin macmacaanaan qabnaa hooyooyinka soomaalida oo kale adduunka ma jiro ilaahay waxaan ugu baryaa gabadhaas walaashayna oo ka tagta caruurteeda yaryarka oo qurquruxda badan iyo ninkeeda weli shabaab ay isla aayeen awal shabaabnimadeedii ilaahay aakhiro u watay ilaahay waxaan ugu baryaa rabbi subxaanahu gurigay ka tagtay inuu ilaahay qalbigooda baruud oo dhex dhigo oo baarid dhex dhigo oo ilaahay ma iloobi karaan walaa sanad anagaana iloobi karaan aniga saaraa markasta waxaan ku xirnaa barganaanadeeda waxaan ku xirnaa sidai u hadlaysa edabta akhlaaqda isluubka iyadoo wax qof dhehayso ma arkin weli waxaan ka sheegsoogsanaha oo shoog ila haystaa intayna dhiman ka hor 2 biri ka hor ay waxay soo gelisay video ma ilaahan qof
amba adduunyo ka tagaysa xataa waxay dhahaysay oo videogeed aan fiirsanaya oona intaana dhimashada arkay waxay dhahaysay koroonihii ayaa nagu dhacay koroonihii walaalaha inaan ka dabageeyo ayaan ugu talagalay insha allah aniga waxay dhahday caafimaadkan ilaahaaya dhimashadana ilaahaaya laakiin waxay dhahday waxaan cabe iyo kuleelkiiyo wixii iyo waxaan isku sameeyey ayaan iisoo dhigaa ma fahamtay wallahi waa calool xumo ilaahay waxaan ka baryaa jannada midda ugu weyn ilaahay qaatimo xisna allah ka dhig dadka jannada ugu horeeya dadka taashka loo geliyo quruxda badan allah ka dhigo awlaadeedana ilaahay sabr iyo iimaan allah ka siiyo awlaadii aabahana allah sabriyo maasha allah fartuunay maanta meel fiican ayaa martay awlaadaada diin islaana wadan gaala ku bartay awlaadaada gabdhahaada qurquruxda badan xijaabay ku wataan hooyo nasiib la ayaa saas noqoto adiga gabdhahaadana waa isla ekegeedeen saaxiibahaadena ahayn maasha allah anigu xaggayga mar hore aan ku jeclay wallahi waxaan ku jeclay dar allah inuu barnaamijin hadaladaada igu socdo anigaba hooyo adiga camalaan ahay aad u hadaladaada igu socday walaashay janno fartooysa ayaan kugu duceeyay inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun walaalayaalow meesha ugu baxay قصدي ولا شيء فرتون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.